deegaanka cali buley oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi xaruntii ay ku lahayd shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa waxa gubay oo burburiyay ciidamada Kenya. ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo ka soo tilaabay xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay qaraxyo loo adeegsaday miilooyin ku burburiyay xaruntii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku lahayd tuulada cali buley oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. isgaarsiinta deegaanka ayaa weli hawada ka maqan iyadoo shacabka halkaasi ku nool siin jirtay adeegyo kala duwan oo isugu jira isgaarsiin iyo adeega EVZ Plus-ka oo muhiim u ah nolosha dadka halkaasi ku nool. dhowaan ayay ahayd markii saamileyda shirkadda Hormuud ay kulan degdeg ah ka yeesheen dhibaatada ciidanka Kenya ay ku hayaan ganacsigooda iyagoona dowladda Soomaaliya ugu baaqay in arrintaasi ay wax ka qabato. mana jirto tallaabo muuqata ama isla xisaabtan ay dowladda Soomaaliya kala yeelatay dowladda Kenya maadaama ciidamada ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in ciidanka Kenya ay ugaarsadaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud. waxaase dadka falanqeeya arrimaha geeska Afrika ay sheegayaan in Kenya ay doonayso in dhulka ku teedsan xadka labada wadan ay ka dhigto goob lama degaan ah. ciidamada Kenya ayaa hore u burburiyay xarumo ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo ay ka mid ahaayeen Cali Bande, Dhamase, Khadiija Xaaji, Dhagalaab iyo Dhuuntow oo ka wada tirsan gobolka Gado. waxayna xaruntan hadda la gubay ay noqonaysaa tii lixaad oo ay ciidamada Kenya si bareer ah ay u gubaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay deegaanada gobolka Gado iyo gobolka Jubbada Hoose. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, TV Universal, magaalada Muqdisho.